والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعن سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مدشة نوردن فديان علماء ودين تا وضياشة دلنيرها عرورتا حوينك الديجان كعرفين وحن عطر يا إنس غدا لا يريو وعين سوق وابن محمد يدعي قدام بينيا وحن عطر يا أنت لو كل ميوت كورنيو إن صعب كلا تشوشيو waxaa dhacday waxaan daawanayay idaacadaha labada casho u dambeysay waxaa la yiri oo naloo sheegay in ay wadani isbeddeldoon yihiin waxaa fiican in dadka caqligooda aan la caayin taasi waxa weeye war dawladdii raggii loo igmaday ee wasiirada laga dhigay ee wasiirka madaxtooyada ganacsiga dhammaan jago oo dhan la siiyey ayaa mar qura waxay go'aansadeen inay dawladdii ka dareeraanoo ay dawlad kala dhistaan waxaa ka mid a ragga le isbeddeldoon baannu samaynaynaa oo aan magacaabayaa ceebnaan ahayn in adeerkii abiib timacadde ninkaa abiib timacadde la yidhaahdaa wuxuu ku jiray dawladdii riyaale wuxuu ku jiray tii cigaal wuxuu ku jiray tii siinaayo dawlad walbana wasiir buu ka ahaa haddii lagu siiyey fursad 25 sano inaad wasiir ahaato maanta isbeddeldoon ma noqon kartaa isbeddelka aad samaynaysa maanta 2017 ama 2017 maxaad u samayn weysay fursaddii lagu siiyey ee afarta dawladood ahayd dad caqligeed in la cayaaro maahan waxna waa rasmi waxna waa dabayl hadalka oranaya isbeddeldoon baanu nahay waa dabayl rasmiguna waxa weeye wax qabadkii Axmed Maxamed Maxamuud Silaaya la sii dhameystiraya waxa la dhameystiraya Muuse Biixi Cabdi waxa kamid ah nimanka isbeddeldoonka ah niman iyagoo aan dhaqaale fiican haysan oo dhaqaale buuran haysan galay dawladdii Silaayo oo inay khiyaameeyeen yiri waxaan 40 milyan baanu haysanaa war wax la yaabaa oo ummadda muslimiinta ceeb ku ah oo caqligeena cay ku ah 40 milyan markiiba miyaad la baxday hadda maxaad sameyn markaa ma 80 milyan baad la baxaysaa hadda markaa isbeddelku ma adigoo yiri 40 milyan baan xaday baa haddana wuxuu noqonayaa inaad tiraahdo 40 milyan oo kala doonaya sheeka aan halka ka sheegay cajaayiba nin tuuga ayaa reer u soo dhacay baa la yiri markaasuu dahab meesha islaantu lahayd buu xaday markuu dahabkii qaatay ee uu meel duleedka la fariistay ayaa laba wasaaqadood aad u qurux badan ayaa uu mid buu waayay markuu wasaaqadii mid waayay soo noqday markaasuu wuxuu yiri reerkii inuu yimid wuxuu ku yiri war labadii dhagood dhag baa maqan ama isku darsada ama wada siiya maxaa ka wadaa waxaa ka wadaa war anigaba ila raagaba ha ahaadee hadda eeg anigu waxbaan caddeeyaa war anigaba ila raaga ha ahaadee ninkii xukun soo qabtay ee wax soo maamulay ee la aaminay ee ammaanada muslimiinta qaaday waa in la xusaa waxa uu khalday wuxuu hagaajiyeyna waa in la xusaa loona cadaalad sameeyaa ummadda caqligeeda lama caayayo ninka la soo tijaabiyey ee xaday ummaddan ee tuuganimu ku caddaatay isbeddeldoon maahan waxa muhiima cabdigaas wuxuu idin kala hadlay hadda arrin aad muhiima hadda ciidan baa inala jooga war amnigu waa lafdhabarta ummada ay ku nooshahay nin iska cayaarayo aan waxba ka ogeyn Soomaaliland loo dhiibi maayo amnigan waxaynu ku aaminaynaa oo dalkan nabadgelyo ku soo dabaalaya inta ka dhiman uu nabadgelyo haystaaye waa ninka taariikhiga leh ee ciidanka soo noqday ee soo difaacay ee sharciga garanaya ee ruuliska garanaya ayaynu ku aaminaynaa waxaynu doonaynaa inaynu kala dambeyn dhaba yeelano oo qoryaha ummadda laga guro oo qoryaha inta la qarsanayana la qarameeyo waxaynu doonaynaa dawladnimadeena inaan cayaar noqon ay dib noqoto waxaynu doonaynaa in xuduudeena ay adkaadaan arrimaha noocaas haddaynu doonayno
doorashada waajibkaa waxa weeye inaad qof saxa u doorataa muhiimadda maanta aan leeyahay waxa weeye safar dheer baan soo maray deegaankeennu ceelafeyn isma taqaano ceelafeyn waxay xukuntaa dhul aad u weyn ilaa xeeb baynu xukunnaa halkaa ka dhaqaaq 200 kilomitir markaad ceeldimir ka degto ayaad ku gaaraysaa deegaankaasoo dhan baan soo maray dadkaasi waxay u heelayihiin xisbiga kulmiye wax qabad badanna ma gaarinoo dee laamigeennii baaba xoogaa wax ka dhiman yihiin laakiin waxa ay leeyihiin taariikhda ayaannu u hiilinaynaa su'aal uun baan ku soo gabagabaynayaa war guri nin dhisay oo uu dhagaxii ku shubay oo aasaaskii uu ku shubay oo uu taagay oo jiigadda markuu marayo nin inuu iska yimaado anaa galaya yidhaahda xaggee lagu arkay dhici maysa dee gurigan somalilan baa la yidhaahdaa maandeeq somalilan maandeeq maalinaweed baa waxaa ku kaftamayey nin qurba joogoo aad iyo aad aan isu dacaydin jirno xooggay weyn sidaasoo kale ayaa safaari udheelka la yidhaahdo oo laga sameeyey meesha lagu dabaasho ayuu ku soo dabaashay markuu ku soo dabaashay somalilantan wuxuu odhan jiray meel gaari mayso markuu soo dabaasho tuwaal wato uu ku soo dabaasho wuxuu igu yidhi maxamuudow wallaahi meel lagu dabaasho aad qurux badan baa laga sameeyey hudheelka safaari markaasaa ku yidhi hudheelka safaari iskama iman dee cirka kama soo dhicin rag baa u soo dhintay lafaha ku hoos aasan hudheelka naftirkiisaa lafa ku hoos aasan yihiin halkan baa loo soo maray waxaa mahaddaale ciidanka qaranka somalilan baa mahaddaale waxaa mahaddaale ragga yunifoomka ku xidhan baa mahaddaale waxaa mahaddaale nimanka taraafikada mahaddaale waxaa mahaddaale ciidanka boliiska mahaddaale waxaan halkan oon maalin walba ka ilaawaa oon u soo marinayaa salaan qaaliya salaan ka socota musharaxa muuse biixi cabdi salaan ka socota madaxweyne axmed maxamed siilaahi ciidanka qaranka somalilan meel walbo ay joogaan ee ina difaaca ee inoo taagan ee markaynu hurudno saruureyna hurno iyagu soo jeeda waxaan salaantaa ugu adkaynayaa innagu markaynu milixda ka harsanayna ee aynu guryaheena jiifnay duurkii tahay iyagu qorraxday taagan yihiin waxaan salaantaa ugu adkaynayaa inagu markaynu dharka khafiifka xiranno iyagoo kaakigay xiran yihiin waxaan salaantaa ugu adkaynayaa innagu markay ragga wasiiradu ay 2 kun qaadanayaan iyagoo $100 bay qaataan waxaan salaantaa ugu adkaynayaa ciidanka qaranka somalilan marka ummaddu ay caafimaad u baahdaan kuwa kale markay dawladda u yaacaan iyagoo cusbitaallada somalilan bay ku wareegaan war nimanka mahaddaa miyaanay lahayn ciidanka qaranka somalilan haddaba miyaynu dooran karnaa ninkii yidhi askari baa dalka u sharaxan bal ciidanka aan ka soo sheekaynayey ee taariikhdiisa aan xusayey ee sharaftiisa aan xusayey cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi dhugbo uma lahaba wuxuu ku leeyahay waa askar oo yaa ku difaacaya waxaa la yaab leh markuu musharaxa wadani uu sidaa leeyahay waxaa u saaran 4 dhinac ciidan oo gaarigiisa saaran miyuu ilaawo kuwa gaarigii saaran inay ciidan yihiin waa wax la yaab leh weeyaan waxaan leeyahay caqliga bini'aadmigu ha shaqeeyo ummadi waa qarannimada dowladnimada waxaa ku taagan tahay waa ciidannimo waxay ku taagan tahay dhaqaatiirta waxay ku taagan tahay macallimiinta waxay ku taagan tahay hay-adaha aan dowliga ahayn cidna la yasi maayo waxay ku taagan tahay haweenka aan habeen iyo maalin nasan ee ina hortuban hadda inoo shaqaynaya waxaan leeyahay waddani uma dhaadhacsana qarannimada weli ma gaadhin ha soo tababartaano ha fahmaan in dowladnimadu uu ciidanku ka mid yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu